waxa lagu shaqaynayaa uu kala duwan yahay gaadiid buu noqon karaa qalab buu noqon karaa ammaanada ayay ka mid tahay waxyaabaha uu wax ku soo saarayo hayo inuu ilaaliyo gaadiidkii ummaddu ay wada lahayd maalan inta uu shaqada hayaabuu isticmaalaya gaadiidka shirkadda telefoonkii shirkadda inta shaqadu jirtaabuu isticmaalaya marka shaqadu ay dhammaatana dhinac buu iska dhigay u xaraynaya cumar ibn cabdilcasiis allah raximahu llah waktigii ummadda islaamka madaxda u ahaa ayaa nin barasaabadiisii gobolada ka mid a ayaa u yimi warbixintii buu siiyey dhulkii uu madaxda ka ahaa intii shaqadu ay u socotay layr baa u baxayey laambad baa halkan baxayso dee berigii hore laambad baa la shidan jiray triiga weyni ma jirin markii warbixintii ay dhammaatay iyo arrimihii dowladda laga hadlayay ayaa ninkii wuxuu bilaabay inuu si gaara u waraysto cumar ibn cabdilcasiis markuu arkay inuu ka baxay hawshii dowladda ayuu laambadii baktiyo tu kala saraaday ninkii baa wuxuu ku yidhi malaa waxaa fiicnayd inaad taa hore inoo dayso taasaaba yaro iftiin weyneyda ba intii hore arrinka ummaddaynu haynay sidaa daraaddeed faynuuskii ummadda aynoo baxayay imikana dan gaaraynu ka hadlaynaa taadii iyo tayda ah taydan gaarkaabaynu shidaynaa waa wax aynu odhan karno waa laynagaga horeeyaa haddaynu nahay ummadda islaamka madaxweynayaasha maraykanka waa dhegaysanayseen waxa lagu haystay wuxuu isticmaalay telefoonadii white house-ka guriga cad telefoonadiisiibuu markuu wax kaambeyn garaynayay ayuu isticmaalay waa lagu haystay marka arrintaasina runtii waxa ummadda ka dhaxeeya akhlaaqiyaadka camalka waxa ka mid a inta ummadda loo shaqaynayo shirkad iyo shaksiba ayuunbaa la isticmaali karaa waxa ka dhaxeeya ummadda marka kale qofku xaaladiisa gaarkaa u baxana wuu joojinayaa waxa ummadda ka dhaxeeya